daawadayaal dagaalka culus ee u dhaxeeya Soomaalida iyo sidoo kale Caanfarta ee ka socda gobolka City ayaa waxa uu maraya heer meeshii u darneyd oo markaas la sheegay in dadka Soomaalida ee ku sugan gobolka City gaar ahaan Candhuufa in xasuuq ba'an ay u geysteen ciidamada Caanfarta oo dhabarka ay ka riixayaan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ee gobolkaasi Caanfarta ka taliya. waxaa la sheegay in dadkii ugu faraha badnaa ee Soomaaliya in lagu xasuuqay gobolkaasi City gaar ahaan Candhuufa. wararkii ugu dambeeyay ayaan ka haynaa waxaa markaasi soo taraya muuqaalo markaasi dadka Soomaalidu ay dhibsadeen kuwaas oo dadka ku sugan halkaasi in ay sheegeen ciidamada markaasi federaalka ee Caanfartu ay la socdaan in ay xasuuq daran uga geysteen goboladooda. haddaba daawadayaal waxaa jira muuqaal naxdin badan gabadh yar oo ka soo muuqatay warbaahinta markaasi dhulka Soomaalida ayaa waxay sheegaysaa in guud ahaan family-geedii ay iyada kaliya ka hadhay oo ay sheegtay in aabaheed walaalaheed iyo hooyadeedba guud ahaan lagu xasuuqay halkaasi. bal aan muuqaalka wada daawano. haddaba xasuuqan ayaa waxaa markaasi ka mid ah in guud ahaan magaalada intii la soo galo guud ahaan la gubayo oo waxaa la sheegay in dumarkii iyo sidoo kale raggiiba loo aaba yeeleen oo guud ahaanba cagta la marinayo. waxaa markaasi jira muuqaalo ay kasoo duubeen waa Caanfarte dadka Soomaalida oo ay markaasi baabuur ku gurayaan qarna ay leynayaan guryihiina ay gubayaan deegaamada Candhuufa sidoo kale guud ahaan gobolka City oo gudaha u soo galeen. waxaa la sheegay in ciidamada Caanfartu oo markaasi dhabarka ay ka riixayaan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ee ismaamulka Caanfarta in ay u xoog sheegteen dadka ku sugan gobolka City oo dad Soomaali ah. waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo halkaasi lagu qabtay oo ay qabteen ciidamada Caanfartu iyagoo sheegaya in ay weydiinayaan qabiilkooda oo ay ku falcelinayaan inay yihiin dad Soomaali ah. sababta dadkan loo xasuuqay waxa weeye in halkaasi waqti hore oo markaasi laga joogo hadda dhowr sano oo markaasi madaxweynihii hore dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu dhul markaasi loo kala qoondeeyay waa dadka Caanfarta sidoo kale dadka Soomaalida in ilaa hadda la isku haysto inkastoo dhulkaasi la sheegay inay leeyihiin dadka Soomaalida ee halkaasi ku sugan. haddaba daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xasuuqi ugu darnaa ee abid ka dhaca halkaasi ay geysanayaan ciidamada markaasi Caanfarta ee ay dabada ka riixayaan markaasi maamulkaasi halkaasi ka jira dhulka Caanfarta weeyaane. daawadayaal wararkani ma sahlana dadka halkaasi ku sugan sababta kaliya loo xasuuqay waxa weeye inay yihiin dad Soomaaliyeed oo markaasi loo diidayo in ay dhulkooda markaasi xoolahana ku dhaqdaan ayna deganaadaan. waxaa la sheegay in dadkaasi ay muddo dheer ay dhibaatadan ku hayeen inkastoo dadka Soomaalidu ay yihiin dad laf adag oo ay markaasi in badan iska celiyeen ama iska caabiyeen waa dadka Caanfarte. haddana waxaa la sheegay in arintani ay markaasi dabada ay ka riixayso ismaamulka Caanfarta oo la sheegay in uu hub iyo sidoo kale gaadiidba uu soo diray halkaasi si ay u qabsadaan dadka Caanfartu. waxaa la sheegay dadka Soomaalida iyo sidoo kale Caanfartu taariikh hore oo soo kala dhex martay in badan ay iska caabiyeen dadka Caanfarta ama ay iska celiyeen dhulkoodana ay markaasi gacanta ay iyaga ugu jirtay. haddaba daawadayaal wixii warar ee ka soo kordha halkan ayaan soo gelin doonaa si daawada muuqaalkana sii shargaray si ay bal Soomaalida kalena uga falceliso arrintan la yaab kale ee dadka Soomaalida ee ku sugan gobolka City ee lagu xasuuqay si ay uga falceliyaan muuqaalkan sii shargare. waanaad ku mahadsantahay daawashada. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartaan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.